الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا ونكسن داوديال ومركله iyo barnaamijkeeni gaas iyo gorfaynta buuga oo toddobaad walba aad ka daawataan hal habeen muuqbaaya MMTV maantana barnaamijka gaas iyo gorfaynta buuga waxa ay igu marti ah Sayid Axmed Maxamed Yuusuf dhigay aad iyo aad u soo dhaw waana maasanta waqtiga qaaligan si soo dhaw aad iyo aad baad mahadsantahay gaas ama Jamaal aad baad mahadsantahay وهاي سودو واحد دوني ما تين نودور بوبين فلانقين دونا لكن هرت بلادية داودياشا عن سكين برا سيد أحمد وكم هالكوكو دشي بالتاريخ نولك هذا نص ركوب. بركة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدبر هرت هذا ما هذا غير أنت برنامج كان يفرصنا على السيسي ده وأرن بلارون ومركل لا يلاحظ قف كيسكور وهالجاي يابينه de waqti badan ay ku qaadan karto ama ay kuba adagtay laakiin se yaro kooban haddana yiraahdo anigu Sayid Axmed Maxamed Yuusuf waxa uu ku dhashay magaalada Sheekh dhowr iyo 60kii xilli waxaan garaadsaday intii dawladii kacaanka ayuun baan garaadsaday oo ku garaadsaday Maxamed Siyaad Barro dalka madaxweyne ka ah waxbarashadeedii waxaan ku soo qaatay inta hore magaalada Sheekh markii dambe dugsigii sare ee 15 May dugsi caan ah oo ku yaalay magaalada Muqdisho ayaan ka baxay kadib dagaaladii baa dhacay waxaan soo galay ugu dambe waxaan dhul badan baa soo maray runtii ka gaari kare waa laga yaabaa buugaga dambe waxay ga weydiisay in qaar ku jiraan waxaan soo galay kadib 1990kii wadankan Sweden oo aan ilaa hadda ku noolahay وحاجة مهتسني تاريخ كومان إن هذا هذي إنه وصل لابنو حاجة قرالك سيد أحمد وكل مدة الحقوري سي هذه قرمة سوتين حقوري كرتو كو بلعبتين يعني فكر كاه إنه حقرته runtii waa su'aal aad u wanaagsan waan jeclaa wax akhriska waliba wax akhrisku waa kala duwan mar waa aqoon marna waa waxyaabaha sheekada ama suugaanta oo kale ayaan aad u jeclaa sheekooyinka dad Soomaaliyeed ay qoreen waxaan garanayaa xilligii aan markaa Muqdisho joogay oo kale oo buugag soo bixi jiray lagu iibin jiray meel la oran jiray Afriirdood waan tagi jiray waan ka iibsan jiray intii aan taalkayga iibsan karayo waxaan xasuustaa buug uu qoray Booba Yuusuf Ducaale oo uu ku soo ururiyay gabayadii Timcadde Ilaahay u naxariistay gabayaagii caanka ahaa buugga waan haysan jiray sheekooyin kale oo aan ka xasuusto sheekadii Maanafay iyo Galti Macruuf mid la oran jiray iyo waxyaabaha runtii aad baan u xiisayn jiray marka waa laga yaabaa markaaba in si ahaan ay ugu jirtay qoraalku laakiin markii ugu horeysay aan sidii qor oo wax reeb waliba xagga taariikhda aan xiiseeyay xiisa ma aha aan sidii waa muhiim waxay ahayd markii dagaalku dhacay 88kii oo magaalada Sheekh baan markaa joogay Muqdisho aan ka yimi bixitaankaanu ka baxaynay Sheekh ayaan aan markaa baxsad oo aan ka baxayna magaaladii ayaa ugu horeysay runtii inaan ka fikiro inaan taariikh iska reebo laba warqadood baan sitay qalinna waan sitay laakiin markii dambe waxba kuma qorin kuwa oo laakiin way igu jirtay markaa lafteeda way igu jirtay waan dareensanaa waana laga yaabaa inay mar horeba yaraantaydii baa igu jirtay qoraalku dad kala duwan waxa laga yaabaa in dhinaca taariikhda ama dhacdooyinka aan xiiseynayay kulliba ay buuq badan oo kale taariikhna waad qortay sidaan arkay marka laakiin marka la qoray warqadadan wax marka ku qoran kulay waqti dagaalay hadii sitankii oo la qaxayay marka goormaad isla heshay fursad inaad buug yaqaan ka qaadato waxa ugu horeysay markii aan imi wadankan Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm waxaan u soo guuray 93kii markaan u soo guuray nin aan walaalnahay imka aan deganayn halkan ayaanu guri wada deganayn kadib wuxuu arkay inaan xiisaynayo inaan qoro marka hore waxaan ka fikirayay aniga iyo wixii aan soo maray oo runtii wali aan taa dhamaynba marka waxaan soo iibsaday computer maan iibsan waxaan iibsaday taababkii hore ee wax lagu qori jiray 150 crown baa la iga siiyay waan ku bilaabay markaan 3 page qoray ama book ayuu akhriyay walaalkay waa nin iga weynaa Mustafa Maxamed Yuusuf dabadeedna xiisa ugu horeeyay isaga igeliyay runtii waayo markuu akhriyay sheekadii ayuu igu sheegay inay tahay sheeko aad u xiiso badan waayo marka qof uu ku dhiirigelinayo runtii waa muhiim dabadeedna waxaan dareemay inaan wixii sii wadi karo ilaa 60 page baan gaarsiiyay laakiin nasiib darro teebka way adagtay inaad ku kaydiso oo haddana aad kala soo baxdo waxay noqotay in ay sheekadaasi aanay sideedii u wada qormin markii dambe waa isla tan socdaalkii dheer oo soo bixi doonta markii dambe 10 sanadood kadib
aad marka maxaad markaad waad bilowday kulli waddankana inta badan wax badan xoog looma qoro jirin dhowr iyo sagaashan imkay kulli soo bateen qoraaladu ayaan malaynayaa marka goorma marka maxaa caqabade ka horyin marka bilowgii qoraalkaaga aad Sudan ka bilowday inaad buugta qorto waxa ugu horeeyay runtii horta computerku wuxuu faa'iido weyn u leeyahay in aad wixii bedbedeli karto kaydin karto laakiin markaa anigu aan bilaabay wuu jiray computerku laakiin sidan muu u wada ahayn wax qof walba uu heli karayo marka teeb lagu qorayo waxaan dareemi karaa waxaan ahay markaa dadkii ugu dambeeyay teeb isku dayay in wax ku qoraan waayo dadkii hore waan dareemi karayaa dhib baa ka haysatay haddii uu kaa qaldamo ma sixi karaysid waa inaad baabi'isaa waa inaad haddana ku noqotaa dhib badan baa kala kulmi kartaa bog keliya oo wax higaadu kaa qaldantay ama aad isleedahay wax ka bedel marka horta caqabadahaas waa ka mid bay ahayd xagga farsamada ah dhinaca kalena dee wax markay kuugu horeeyaan ma fududa inaad markiiba isla fahanto qaabkaad wax u qorayso sidaad u saxayso cid kaa saxdaa ma jirto daabacaadda markiiba waan isku dayay inaan fahmo habka loo daabacayo oo taa lafteedu dee waxay ahayd arrin marka ay hortaagan iyaa daabacaya sidee loo daabacayaa waa sax marka ilaa imisa buug baad qortay ilaa hadda waxaan qoray waxaa jira buug yar oo isla marka lagu daro la yidhaahdo bisadii aan batay marka lagu daro kaa oo 20 page 30 page meelaha ahaa waa 7 buug laakiin qaar aan ku noqnoqday baa jiro oo aan 2 jeer saxay oo dib ugu noqday oo runtii hawl badan iga qaatay laakiin waa ilaa 7 buug marka aduu Sayid Axmed oo maxaad xiisisay inaad wax ku qortay waxaad sheegtay taariikhda mise marka taariikhda baad qortaa mise waxyaabo kale oo sheekooyin malawaal oo kale baad qortaa runtii waxaan isleeyahay malaa waad xagga sheekooyinka malawaalka waan ku ficnaan lahaa laakiin waxaad moodaa in wax kale igaga xoog weynaa oo aan isleeyahay kulleyba yaraantaydii koritaankaygii ayaa sabab u ah oo waxaanu ku kacaanay ama ku soo garaadsanay laba waxaan oran karaa laba mawjadood oo kala duwan oo midna ay tahay farxad iyo faan iyo dawladdii markaa meesha qabsatay oo aananu markaa garan karayn oo dugsigii hoose markaanu gallay uulada aanu gallay oo iskuulka lagu dhigayo hanti wadaag iyo heeso iyo samada la marayo markaad guriga tagto iyo dadka waaweyn iyona waxaa ku jiray werwer iyo walaac iyo dad la xidhxidhay iyo baarlamaankiyo show markaa la xidhxidhay iyo dad la laayay wadaadadiyo la dilay markaa laba arrimood oo isqabanayn ayaan ku soo garaadsaday anigu arrintaasi waxay keentay markan dambe inaan wax badan isweydiiyo oo idhaahdo waxaas sidee u dhaceen halkii markaad weynaato wixii baadhaa marka halka igu runtii taariikhaha dib igu celisay oo aanan welina ka gayoonayn waayo waxaa qori karaa waa maaha qof keliya wax ma qori karo waxa weeye waa arrimahaas ayaan anigu isleeyahay oo markii dambena dagaalkiiba dhacay dheerkii dhulkiiba lagu kala cararay marka waay waxaan maxay u dhacayeen ilaa 77kii waxaan dee garaadsaday iyada oo ay wadaniyadu ay xoogan tahay haddana dhinaca kale la hadal hayo in dhibaata jirto marka dhibaatadan la sheegayaa waxaan dib baan ka fahmayaa waa militarigan dalka qabsaday iyo shuruucdan ay baabi'iyeen wadankuna marka aynu ku sii socday dee sidan maanta aynu ognahay ayaa markaa ku soo baxaysa marka waa laga yaabaa inay taasi runtii saameyn ugu yeelatay ma sax waan gartay marka imka siba arinta xagga ku saabsan taariikhda Sayid Axmed wax way mar walba Soomaalidu taariikhda isku qabsataa oo ma fududayn yani taariikh Soomaaliga maadaama inuu leeyahay dadkan waxay dad hadal iyo war iyo sheeko isku soo galeen badan bariga hore qoraal fara badan ma uu jirin marka xataa waxaad arkaysaa taariikh fara badan oo wax ka khaldan yihiin taariikhda oo madartay nin walba taariikhda sidii uu leeyahay keenso ayuu u akhristaa marka kulli waa muujid adag in taariikh wax laga qoraa marka maxaa kala kulantay caqabado keed ka raadisay sidoo raadsato sax runtii waa arrin aad u wanaagsan su'aasha inaad weydiiso waliba aan dadkana la wadaago waa arrin aad u muhiim ah waayo anigu markaan bilaabayay xiisaha iyo isweydiinta aan wax isweydiinayay ayuun bay ahayd oo aan niyadda ku hayay waxaan dadka waaweyn wax laga reebo dadkii wax goobjooga u ahaa wax laga qoro laakiin kadib dee maanta nin waa aragan maanta ahayo waan garan karayaa wax badan oo beriga aanan ka fikirayn ayaa jira waxa weeye dadkeenu waxay waliba Soomaalidu dabcan marka waxay qorayaan waa si aad sheegayso waxaan qoray waxa laga yaabaa in badan baa aan jeclaysanayn wax qof kale qorayna mid kale aan jeclaysanayn waxyaabahaas waxa keenaya halka ugu horeysa waxa weeyaan wax wal oo la qoraya waa inay yeeshaan raad raac adiga oo Ilaahay ka baqaya dad muslimiin baynu nahay waa in aad ka fikirtaa dhinac way noqon kartaa
laakiin dhinacay noqonaysa waa inaad u haysaa raadraaceedii oo aanad iska qorin macnaha waa sheeko aan maqlayuun xataa haddaad maqashay isku day inaad qofkii aad ka maqashay aad sheegto marka waxaa la yidhaha referenceka ama raadraaca waxaan qabaa qofku hadduu raadraac sugan hayo taariikhda wuu qori karaya marna de waa mar aqoon ahaan loo barto oo dad badan oo aqoon ahaan u bartayna way jiraan oo dadkaasi way garanayaan iyagu raadraac ah sida loo qoro sida buugga aad raadraacaysaa waxa uu yahay oo waxaa jira raadraacyada qaar baa aan ahayn kuwa sugan markaa ma raaci kartid waxaan odhan karaa habka axaadiista waxaynu nahay dad muslim baynu garanaya axaadiista waxaynu maqalnaa xadiiskaasi waa mid saxiixa iyo ma aha waa maxay sababtu waa halka reference-ku ku jiraa marka reference-ka ciddii taariikh wax ka qoraysaa inay iska ogaato oo ay iska macnaa meel saarto waa muhiim aad iyo aad marka kala kulantay in ay tusaale ahaan taariikh isku mid ah amba dhacday in laba qof oo midba dhinaca kale ka eegayay si kala duwan kugu sheegaan maxaa kaga soo bixi karaysaa waxyaabaha aan runtii aan si fiican u garanayaba waayo waxaa jirtay 88kii markii dagaalku dhacay qof walba goob buu joogay dadkii garaadka lahaa oo uu sharxi karayay goormaad maqashay marka waxaan isku dayey maqaal yar baan qoray waxaan isku dayey inaan sheego goortii aan maqlay isla markaa waxaan sheegay walaalahay oo aan wada soconnay inan iyo inan ilaahay naxariista inantu way dhimatay inaan kuwaa nool yahay Yaasiin Maxamed Yuusuf Hargeysa joogaa waxaan markaa anigu haystay inaanu saddexda iyaduba isku mar maqalnay laakiin markii dambe aan waraystay labadoodu waxay ii sheegeen mid walbaaba inaanu markii anigu aan maqlay inaanay maqal arrintaa u fiirso anigu dagaalka xilligaan maqlay waxaan u haystay inaanu isku mar maqalnay laakiin labadoodu mid walba wuxuu igu yidhi markaa maan maqal waxaan maqlay mid wuu ka horreeyeyba xilligu maqlay midna wuu ka dambeeyey inuu dagaal ku dhacay yani dagaal dhacay baa xilligay maqleen ee burco markuu ka bilaabmay goortaanu maqlay anigu waxaan u haystay markaa inaan wada soconnayba markaanu maqalnay arrintaas waxay ku cadaynaysaa qofku isagoon been sheegay ayaa dhacday 10 qof oo wada joogay midba sibuu u sheegayaa sababtaas waxay la xidhiidha xagga psychology-ga marka ma garayo ma sii garayo marka qofka ku adkaysanaya waxyaabaha qaar wuu qaldan yahay inuu ku adkaysta maaha waa inuu waraystaa oo uu weliba baadhaa marka isagu qaybtu dhinacu ka joogsaday dhinaca kale qofka kale ka jooga meel dhaxay waxaan isugu imanayaan waana hababka research-ka baaritaanka waxyaabaha marka la baaritaan baa la sameynaya arrimahaas waa ka koob waa tusaale xujid hadii tusaale ahaan laga sheekeynayo taariikh matalan hadii iskuul matalan la diiday in maalinta la furo oo iskuul la xiray oo kale tusaale ahaan oo qofba ku sheegi karo la oran karo tusaale ahaan waxa soo gashay meelaha jabhadii waa looga sheekeynaa soo gashaa dhici karta qaarna ay oran karaan maye xanuun baa jiray yani way imanaysaa inkastoo ay kala xoogantay laakiin waxaan qabaa waxa arrin kaliya oo dhacday baa qofba si uga warrami karaa laakiin waa laga yaabaa inay kala xoogantay oo qof dhowr qof ay iskaga mid noqon karaan dhowrkaa isku midka noqday qofka ka duwanay sababtu uga duwanaaday xitaa waa lama odhan karo been buu sheegaya laakiin se sabab baa jiraysa صح وهجاج وانقرس تاسكس بوجود بنات وإحنا وجود بنا بوجن هذا قرطي وإحنا من لو بايوغرافي الله نحرسته أباهايا ويو فهم كونه بابو كتيرة سانك خرستي وأنا محمد يوسف دقي وأبا الله يرحمه فهم بوست ماستر كي مركا كلمة داسي بوست ماستر كا هذا كدورتي إيوان كبوكاسي شغلي سيدنا فيها رنتي أبان وقحما هاي حلقي عن arrimahan ku baraarugay aabo da'bu ahaa garashadiisuna markaa xasuustu way sii yarayd oo xasuus badan markaa muu xasuusanayn laakiin ka hor haddaan wax badan weydiin lahaa runtii wax badan baan ka reebi lahaa postmaster dad badan baa u yaqaanay xilligaa hore dadkii ay isku da'da ahaayeen iyo xitaa ardaydii aada uga yaryarayd ee dugsiyada sare ee sheekh iyo ka dhexe ee sheekhba ka baxay way yaqaanaan imika hadday dhegeysanayaan way garanayaan postmaster maxamed yuusuf dhegey postmasterkii boosta madaxda ka ahaa way garanayaan ilmo boos baanu ahaynba ilmo boos baa nala odhan jiray boos wuxuu ahaa madaxdii boostu ahaa marka maadaamuu boosta uu madax ka ahaa xilligii ingiriiskana markaa uu marka hore shaqaalu ahaa laakiin markii ingiriiska meeshii ka tegey isagaa noqday madaxdii waxaanu kasoo shaqeeyay sida buugga ku taalla meelo badan marka postmaster waa halkaa oo dad badan oo iminka dhegeysanaya waa laga yaabaa sida nin la yidhahdo xujaale oo kale oo professor xujaale
mar aanu kulannay waa ina boos master buu ilahaa marka boosta sababta san u doortay waa taariikh bay leedahay aad iyo aad marka wax kala socod ku jirta mar hore awowgaa baan filayaa in uu kasoo doon kasoo raacay meel shabeellaha hoose ka shishaysa waxaan malinay ahayd xadka Kenya ahayd baan malinayaaba doon buu soo raacay oo ilaa iyo sheekh ku yimid muddo sheekada bal noweerada waxa sheekada runtii waxa ay iga sheekeeyay ilaa uu xirsa aaba iga sheekeeyay waa sababahan u xiiseeyay taariikhdani wax badan way lumeen oo runtii ma ka gaadhin laakiin waxa uu iga sheekeeyay ma hadhinaca Kenya waa meesha la yiraahdo war sheekh markaa Muqdisho xagga bariga ayay ka soo xigtaa waxay ahaan jirtay meel markaa deked u ah oo Muqdisho عام باي المجال وين باي هلو تاريخ دير له لكن مجال يدنا سوديس ميسي ولا جاي عبينا وقت تاريخ دير يدنا الهايد باي هايد أوجي مركب ماش مركب ورد تاريخ هرو كتجي وهو كيمي إريتريا وأسمرو كيمي عسكري بوها إن يرو عسكرية كدب أيو جورسنية كدب أي أبيو مركب أيدالنا يعني يجوا مركب يرير ayaa sabab imkaan degayn ayaa looga soo iriyay in ka soo baxaan ma ay xaggan xitaa Soomaaliya waayo Soomaaliya Talyaaniga markaa ka talinayay marka waxay u soo baxayeen Somaliland protectorate bay u soo baxayeen doonta markaas ka soo raaceen war sheekh waa si wanaagsan marka waa kii muddo intuu yimid ayuu madartay ayida carruurta ayidooda buu keenay aabo kadibna xaaskii buu dib ugu noqday ilmo yar oo 2 sanadood inuu ka yimid ayaa taariikhda ku qoran saaka akhristay kadib waxa jirtay marka markii uu yimid magaaladan waa kii hadana ku biiray man wadaadada sax awow wuxuu ka mid noqday wuxuu tagay magaalada Harar buu tagay Harar waxa haystay markaa Talyaaniga sababtu uu tagay waxa maamulkii Talyaaniga ee uu la soo qabsaday ee uu Aftalyaniga bartay Carabidana uu yaqaan oo Quraanka dhameeyay buu ahaa marka wuxuu qaybta maxkamadaha ayuu ka shaqeynayay Harar taas ku tagay oo uu dabadna carruurtiisa ka soo qaaday sheekh ka soo qaaday iyo hooyadiiba aad iyo wakiil walaalkii iga daba keen ku dabadna waxa la geeyay Harar baa la geeyay Harar laakiin dhibaato kale kaga dhacday marka dambe oo dagaaladii Talyaanigu la galay axmaarada ayaa ay hadana ka soo qaxeen oo ay ku yimaadeen markii Hargeysa waxa kale ku jirtay sheekadan ku saabsan dariiqada xafada sheekh ee caanka ah magacaas isagu iga warantaa horta xaafada runtii waa meeshan ku dhashay anigu oo aan aad u jecelahay iminkana waan wadaa buug ku saabsan baan wadaa waanan ogeysaa aad u leedahay dariiqadu maxay ahayd in dad badan aanay garanayn laakiin dadkii hore ee lixdamaadkii kontomaadkii afartamaadkii iyo wixii ka horreeyay si fiican bay u garanayaan waayo dadka u ahaa indho ama aad loo yaqaanay caanka ahaa dee iminka haddaan ku idhaahdo injineerkii ugu horreeyey ee Somaliland ama Soomaalida oo dhan علي تردي لها ونحرسته وحكون شيء طريقة سوق ده شيء معلمات دي وجوه رئيسية معلمات جبر صوماليات أو معلمات نقطة وحيكون على تهرك عسى يكون على تي معلم كي وجوه الرئي كشقية هذا معلم كان نقطة دوس كسرة الشيخ هالك عسى يكون ده شيء مركا وحي هاي سد قاعدي بقى كصوب حي وقاعدية دي اللي جاهره مركا هو ميل رنتي دت كإندوا هاي دت كي كصوب حي مركا تاريخ دير بيلاذي وأنا وضع رنتي بك تاريخ دي أنا دي بقرأ marka laakiin magaca dariiqada awowga buu ku yimid may dariiqada waxa weeye waxa jira dariiqooyinku waxa weeyaan magaca dariiqooyinku horta waa dariiqii Ilaahay okay ujeedadu waxa weeye jidka Ilaahay oo ma jid gooniya maaha laakiin bariga waxa aad u xoog badnaa qaadiriya oo iyadoo taariikh dheer leh saalixiya oo ka dambeysay dandaraawiya marka dariiqooyin ay dadku siyaabo kala duwan markii dambe ay laga yaabo aqoon darray wax ku yar dhaceen laakiin ahayd sida sax ah dariiqii Ilaahay u baahay marka dariiqada xaafadiiba magaca waxa u baahay way Hargeysa kale waxa loo jeeday jameecada Hargeysa waxa ku samaysatay dariiqay ku samaysatay waa dariiqo weynaatay iyada lafteedu oo waxa jameecada la oran jiray marka jameeca weyn ayaa la oran jiray marka halkan waa jameeco dariiqada guriga dariiqada sheekh ayay ku caan baxday waa hagaag markii dambe waxa sheegay markii uu ka soo noqday halka waxa kale jirtay markii dambe hadan markuu Ingiriiska ka tagay uu ka noqday maxkamadda Hargeysa ayuu haysan jiray maxkamadda ma waxa way waa Harar laakiin Hargeysa ma qabsan Hargeysa ma waa Harar markii uu hadaba nimanka wadaadinta uu la soo noqday muxuu caqabad kala kulmay markuu meesha sheekh ku soo noqday madiinadu si fahmay quraanka sheekh kuma soo noqon wuxuu Hargeysa degeen jameecada nimankan sheegaya jameeca weyn ayay degeen marka jameeca weyn intii dambe oo dhan awowga Yuusuf dhigay wuxuu deganaa Hargeysa deganaa
oo laga soo bilaabo 39 ama aduu markii dagaalka Talyaanigu uu ku qabsan doono xilliyada ayuu soo degay Jameeca Weyn marka Hargeysa waxa ay Jameeca Weyn iyo in yaroo ay ahayd halkaas saas ku soo degay kumuu soo noqon dariiqada markii dambe isagu soo degin laakiin kadib aabahay baa ku soo noqday isaga laftiisa markaa sabab u ahaa awoow oo ku soo noqday oo doonayay markaa xiriirkii ilaa meeshii uu ku dhashay sidaas markaa sababtaas guurka hooyada iyo aabahayna ay ku dhaceen oo uu taariikhdii dib u soo celiyay maadaama soo maray ilaa iyo Eritrea Soomaaliya oo uu Tiyaglow iyo Buula Berde iyo dhulka uu soo maray haddana uu Herar soo maray oo uu Hargeysa ku dambeeyay haddana sheekhdii uu ku dhashay iyo gurigii dariiqada ayuu aasaas dambe ka sameeyay marka kale wadaadadu inta badan way isqabsadaan marka soo noqday awoow iyo wadaadadii si wadaadada kale meesha sii joogay wax wadaadadii ma iska horimaadeen may runtii waxaad moodaa awoogay Yuusuf Dhagay Ilaahay naxariistee waxaad moodaa markan dambe inuu xagga siyaasadda u badnaa oo SNH oo kale ayuu ka mid ahaa inkastoo aanu de member macna meel madax uu ka noqday aanan maqal laakiin wuxuu ahaa dadkii u halgamayay markii dambe SNH buu ahaa Hargeysaan ku ekaa may jirin wax khilaafaad oo maqlay ma jirin waa hagaag marka buugan fariinta ugu weyn ee uu islaada wax marsan yahay waa maxay akhristuhu ka sugi karaa runtii waxaan aad waliba jeclay inaan ku dhiirigeliyo dad badan oo waxa jira taariikh dheer leh oo macna taariikh fara badan oo imika markaan ilaahdo aabahay wuxuu ku dhashay luuq ganaane haddana aan sheekh ka sheekaynayo haddana aan ka sheekaynayo meesha la Herar ka sheekaynayo waa taariikh ballaaran maaha dhulku baaburmay isu soconayn waa dhul aad u kala fog waxa ku jirta markuu soo xashka ku tagay uu muddo dheer ugu maqnaan jiray xaaji jaamac way kaasi oo halka walaadada doonaysa waxa jaamac laga yaabaa xaaji jaamac baa isagu ahaa dariiqada sheekh aad culimadii waaweyneed ka mid ahaa oo soo xajay xilliga uu soo xajayna waa waxa laga yaabaa 800 iyo dhamaadkii ama 900 horaantii baa laga yaabaa inuu soo xajay marka magaca xaaji waa in la raaciyo xaaji jaamac buu ahaa waa Yuusuf Dhagay ninkan kale inuu ka hadlayna waa awogay Yuusuf Dhagay laakiin xaaji jaamac way ninka culimada la joogay xerooga la joogay xertan la joogay isagu marka waxaan kula talin lahaa runtii dad badan baa jira oo taariikh fara badan leh oo taariikhdaas waxay keeni kartaa mar ubadkii baa xitaa garanaya meel ay waay marka aad garan weydo awowga meeshu ku dhashay wuxuu ahaan jiray taariikhba ma lihi taariikhda wadanka baarbaaraysa waxay iska noqonaysaa mal awaal laakiin in qofku soo ururiyo maanta waxaan isleeyahay waxaan kaga gamaya ubadkooda in ay haday buugan helaan inay heli karaan taariikh ay raacaan marka farid waxa weyn qof walba taariikh dib isugu noqdo taariikhda ugu yaraan xitaa ku ururiyo meel ku ururiyo ku qoro hadaan xitaa buug ka dhigay waa hagaag marka سيد أحمد أو دad كنت بدن dad farman dhalinyaro jirto imiko oo de maadaama ku dhigto qoraalkana kulli waad la socotaa oo dhalinyaro farman laga yaabay wax ka dhex ku haysiiba qurba joogta inay wax qoraan amba af Soomaali ku qoraan ma fududahay dhalinyartaasi markaa inay u suurto gashay inay buug qoraan amba dabacaduhu sidee imika wallahi imika aad bay u fududay runtii aad bay u fududay waayo waxa jira shirkado daabacadeed baa jira oo dhalinyaro soo waliba dhalinyaro leh oo Hill Press baa kamida waxa kamida Iqra baa kamida waxa kamida way badan yihiin loox baa kamida oo Ingiriiska aan ku ogaa way garanuug baa jirta way badan yihiin runtii iyo qofku de inuu toos ba isagu uga daawacdo meeshu doono marka sidii hore uma dhawaa waxaan kula talin lahaa qofku waxa uu xiisaynayo in uu aan ku degdegin ee uu baaritaan fiican sameeyo muddo kasta ha qaadato laakiin uu isku dayo wax tayo leh waayo marka hore waa laga yaabaa xiiso inuu qofku isleeyahay wax soo saaroon oo anaabada kamid waxyaabo badan marka hore soo saaray imika waa dib baan uga istaagaa oo inaad wixii wax raacna leh baadhay adan walba ka eegtay waqti ha qaadato laakiin aad xitaa dad la wadaagtay waa inuu noqdaa oo uu noqdaa wax ka soo baxaya macnaha wax gelaya taariikh dheer weeyaan marka in lagu degdegaa runtii ma fiicna laakiin way fududay sida kale halka su'aasha weydiisay hadda dadka way fududay aad iyo aad marka buuga qofka imika taariikhda oo kale oo de muhiim oo isaas sheegsin reference la helo raad raac fiican la helo مدين ترى بقى عنك تصير بو تاريخ هذا قف قرية والله هو ديران كرتا هرتو waxay ku xirantay imika waxa yara inoo fududeynay internetka wax badan laga helaa oo raadraac badan baad ka helaysaa markii inta bal uu kalsoonaan karaa waxa internetka laga helo waa inaad garanaysaa waxan aad heshay maaha inaad iska raacdo wax meel lagu qoray maaha waxa jira waxyaabo meel loo raacana leh oo internetka ku jira
marka mar haddaad hesho wixii meeshii loo raacayeyna aad hayso librarygii loo raacayey shirkadii loo raacay ama meeshii loo raacayey way fududday marka inaad markiiba heli karto war badan laakiin waa inaad iska hubsataa unbaa muhiim ah ta kale ee aan raacin karna waxa weeye af soomaaliga luqadiiba imka ay dhibaato ka taagan tahay tayada af soomaaliga imka ku maraya basleedahay waayo haddii af soomaali lagu qorayo waxaad u baahan tahay in lagaa saxo oo dee af soomaaliga qoriisi imika sidii hore berigi hore la qori jiray ereyada soo baxa ereyada kusoo kordha amba ereyada ka baxaya khalkhal balaa ku yari jiraad moodaa ka waran tayada af soomaaliga runtii anigu halkaa dad badan oo yidhaahdaa berigii hore ayaa ka wanaagsan macnaha af soomaaliga markii hore qoraaladii hore la samayn jiray xilligii dawladdu jirtay ma qabo way fiicnayd bilow fiican bay ahayd laakiin dadku si furan wax umay qori jirin qoraalkuna isagaa ishabeeya xilliyada qaar marka runtii halkaa imika waxaan isleeyahay aqoon badan baad u leedo wax dhiboo weyni kama jiraan waxaa jira uun habka loo qoray horta fartan aynu qaadanay baa inoo fududaynaysa marka oo laatiina marka ma adka oo fahamku ma adkaanayo waxyaabaha dadku ay yara diidaan waxaa ka mid ah lahjada laga yaabo haddaan qoro imika waxa weeye iyo waxa waaye waa isku mid saddex mid waxaa kaloo jirtay maad aragtay markii uu howlgabka noqday bal halka taariikhdiisa noogu yara noqo howlgabka runtii waa markii militarigu qabsaday dalka ayaa waxaa jirta ahaa 1960 markii uu qabsaday go-aamadii ay soo saareen maamulka militarigu waxaa ka mid ahaa dadkii soo shaqeeyey 25 sannadood inay shaqada ka tagaan runtii arrin waxay ahayd aada u adag oo macnaha pension ay galaan oo howlgab ay galaan hataa haduuna 60 gaadhin afriya wuxuu ahaa 46 jir baabu ahaa aabahay markaa markaa 46 jir 12 caruura leh howlgab noqo runtii way adkayd arrin adag bay ahayd waayo dib baan u ogaaday anigu de markaa ma garan karo waxba kama garanayni laakiin go-aan buu qaatay markaa aabo ah inuu aqbalo waayo waxaa jira dad badan oo aan aqbalin qofka aan aqbalin lama siinayn howlgabka lama siinayn marka aabo wuu aqbalay ilaahay naxariistay wuu aqbalay waana la siiyey markaa waxoogaa howlgabkiisiiya waa la siiyey weliba waxaa loo qoray bishiina maxaa misaal qadan jiray markaa 321 shilin oo u dhigantay ilaa $5 u dhiganta 321 wallahi bilowgii waxaan filayaa inay noqonayso lacag fiican bilowgii laakiin markan dambe de waxay noqotay waxaan waxba ahayn laakiin bilowgaa hore ee 70kii way markan uu gelayaa 70kii 321 de lacag fiican bay ahayd 321 waxa laga yaabaa in $7 shilin ahaa halka dollar ayaa laga yaabaa ama 6 meelahaas ahaan jiray marka lacag yar oo wanaagsan bay iska ahayd laakiin marka dambe la soo gaaray 75kii dabana wixii ka dambeeyay 300 waxay noqotay waxaan waxba macna qofku koob shaah yana oran koob shaah laakiin sida way aad bay qiimaha kuwa toon caruurada may kafeynay marka isla markii buu xogaansaday inuu baasaboor helo oo ay baasaboorku u adkaan jiray in baasaboor uu helo baasaboorkii buu qaatay dabadna wuxuu u shaqo tagay markiiba isla 72 wuxuu shaqo tagay Carabaha صح mar wadamo fara badan uu ka soo shaqeeyay kulay waxa uu u badnaa Abu Dhabi ama Imaaraadka laakiin uu ka soo shaqeeyay Cumaan oo kale uu ka soo shaqeeyay uu ka shaqeyn jiray dekada miinada meesha dekada ay yiraahdaan Abu Dhabi ayuu ka shaqeynayay muddo dheer marka muddada dheer uu ka shaqeynayay wuxuu galay howlgab dhowr iyo sagaashankii mar labaad buu galay dhowr iyo sagaashankii dhawaa ayuu galay howlgabka uu galay 70kii marka waa runtii waa taariikhde marba qof laba jeer howlgab galay aad iyo aad tan wadamo baa kulay saxayd baan malaynayaa xoog bulaa hadii uu soo noqon xaqii qoraalka iyo ma daragtay waxa jirta deemka hadii dadka Soomaali lagu qoriyo kale luqadan kale waa iska fududahay wax laga yaabaa in la helo luqadiyo way dhismayaan luqadii laakiin si af Soomaali in wax lagu qoraa caqabad intee lag bay keeni kartaa mise way fududaan kartaa runtii waa fududahay marka si looga si guud marka loo eego waayo far Soomaaliga wax la qaatay waa Laatiinkana codadka ama waxaan la yiraahdaa phoneticska la yiraahdo waxa loo qaatay siday u dhacayaan ana ba ta sa waxoogaa xaada iyo caada iyo dhowr dhacda iyo sha waaba inta kaliya ee lagaga duwanayay ama si gaar ah loo sameeyay marka ma adka marka qofku akhriyayo wuu fahmayaa wax dhibi kama taagna laakiin halka inta badan dadku ka warwaraan waxa weeye marka la qoro qof walba waxa laga yaabaa sidoo ugu dhawaaqayay inuu u qoro sax oo meelo badan baa laga yaabaa imka dadka qaar inay raacdo kale ku wareeraan raacda iyo dhacda oo kala duwan laakiin wax dhibi kama taagna
cilmiyan waxay sas af Soomaaligu u baahan yihiin anigu saan isleeyahay oo taa ad weydiisay anigu dib weyn uma arko runtii dib weyn ka taagantay waayo waa la fahmayaa markii la fahmayo waanu isa saxayaa wuxuu ku socdaa habkii uu isa saxayay waayo qoraalo badan markuu galo ayay soo baxaysaa goldololadu soo baxaysaa waxaase weli maqan cilmigan la yiraahdo linguistiga ayaa Soomaalida dad bartay way jiraan laakiin aad bay u yaryihiin marka cilmiga in dad badan ay ku baraarugaan oo ay bartaan oo la isku dayo waliba intii taqaanay waa dad waaweyn marka waxa laga yaabaa inay waray kooban yihiin linguistic marka waa noocyada jeeda linguistic waxa weeyaan waa linguistic waxa weeyaan waa barashada maaha af kaliya waa sayniska afafka sax marka qofku haddii dad badan ay maanta jiri lahaayeen oo sayniska afafka bartay oo scientific u bartay afafka waxa fududaan lahayd wax fara badan oo dhismaha afkeena iyo habdhaca waxa jira marka af Soomaaliga oo kale waxaan ku sheegi karaa waxa jira af Soomaaliga wuxuu leeyahay afaf badan oo Afrikaanka uu la wadaagaa wax la yiraahdo tones ama codka sax oo aan lahayn afafkan Yurub aanay lahayn oo marka qofku hadlayo ayaad fahmaysaa laakiin markaad qorto waxa laga yaabaa inaad fahmi weydo oo sida ugu dhawaaqay way marka hadlayso waxaad u fahmaysaa codkaca uu samaynayo hadalkani ayaad ku fahmaysaa sida musiga ayaad u fahmaysaa laakiin marka la qoro de musiga meesha kuma jiro marka arrimahaas u baahan runtii in aad aqoon fiican loo yeesho oo aqoon fiicanna looma lahayn ilaa haddana looma laha dawaba kan imka jamaadan Gothenburg baa lagu dhigaa nin Swedish af Soomaaliga aan garaneyn ayaa dhiga af Soomaaliga aad halka xooggaal baan ahay waana arrin cajiib runtii waayo isku af Soomaaliga kuma hadlo laakiin waa nin linguistic PhD ah oo waliba waa arag muddo dheer u ah oo afaf kala dhigi jiray marka af Soomaaliga cid walba maanta wuu ka badinayaa kumana hadlo marka waa arrin yaab la yahay marka waxa uu bartay waxa weeyaan waa halkan aan ka hadlayo linguistic ma aha ereyadan ay Soomaalidu inta badan ku wareertay ee vocabulary-ga ereygu saas u dhacay waxa ma laakiin wuxuu garanayaa saynis ahaan buu u garanayaa af kasta iyo waxay ku kala duwan yihiin marka habdha marka tan kule codka ah way ku badan tahay afafka Afrikaanka aad ugu badan tahay waana muhiim marka la qoro iyo marka la hadlayo way kala duwan tahay oo tusaale ahaan marka imka afka Ingiriisiga ama Swedishka oo kale wuxuu raacaa habbu raacaya waxa la oranayaa waxa weeye waa subject iyo maxaadayeen iyo verb iyo object baa la oranaya Soomaaligu wuxuu leeyahay verbka mooyaane inta kale uu ka bilaabmaa wuxuu ku bilaabmi karaa marba object ku bilaabmi karaa macnaha la yeerihi buu ku bilaabmi karaa marka la yeeraha ku bilaabmayo afaf badan baa ku bilaabmi karin Arabidoo kale waxay ku bilaabmaysaa ficilkii af Soomaaligu ficil kuma bilaabmi karo oo aan taan ahayn amar dal marka amar hayn tag aan ahayn ama joog aan ahayn laakiin say jumlad dhisan verb kuma bilaabi karaysi macna ficil ama fal kuma bilaabi karaysi marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin runtii iyagu cilmi laakiin sida kale qoraalkan waxay la tahay wax dhib weyn kama taagna laakiin cilmiga linguistiga si imka wadanka kale mu ka jira imka waa tareeda af Soomaali baa lagu dhigaa waa iskuulada qaar inkastoo imka wadamadan English ba laga bilaabo oo lagu dhigin inta waxay ila tahay hadii la yiraahdo af Soomaali baa lagu dhigaa way yartay jaamacadaha oo kale in linguistic dad soo bartay aad bay u yaryiin waayo wala socdaa aad bay u yaryiin waxa laga yaabaa qof af Soomaaliga ku fiican oo ama gabaya ah ama de suugaanta ku fiican in la yiraahdo dhig de qofkaasna wuxuu u dhigayaa wax way ereyadii iyo laakiin si science uma geli karo waayo science ahaan waa qof korta soo bartay marka imka dadka gabayagu linguist kama isticmaalaan mise waa sidii de qofka markuu gabaya yahay de waxa waa heybad waa hibo ku jirta oo waxa laga yaabaa ma kama fikri karayo dhismaha waxaan ka hadlaynaa kama fikri karayo laakiin wuxuu isagu garan karayaa waxa laga yaabaa inuu aad ugu fiicnaado ereyada macnahooda oo ereyo badan uu garanaya baa laga yaabaa iyo bi'adii iyo dhaqankii iyo de wax badan buu garanayaa laakiin marka science laga hadlayo oo afafka ma aha af Soomaali kaliya waa afafkoo dhan science baa lagu dhigtaa science ahaan taa ma garan karayo aad marka taan waa kulli wax loo baahan yahay aad loogu baahan yahay marka dadkiina qoraagi waa dad badan ma dhig maqlay oo imka af Soomaaliga Sweden ku dhigo kale inay jamacada tagaan tusaalahan marka linguistiyaad baa soo baxaan imka mise waqti bay qaadanaysaa laakiin waxaan isleeyahay horta jaamacadan Gothenburg oo kale Sweden waxay ka mid noqon doontaa jaamacadaha ugu horeeya af Soomaaliga barashadiisa laakiin goormay noqon doontaa waqti qaadanaysa waa laga yaabaa 20 sanadood
shan iyo toban sannadood ma ka waraysaa dad dhigtay oo ka soo weli ma badnaa mid iyo laba ayaan isleeyahay way ilaa master bay gaadheen laakiin iyagoo af Soomaali kaliya may dhigan afafkan la yidhahdo African languages-kay dhigteen yadda afafka Afrikaanka oo dhan laakiin hadda wadada uu marayso jaamacadda Gothenburg waxaa dhici karta 20 sannadood ama 30 sannadood ama 15 sannadoodba ama 10 sannadoodba aan yareeyay inay soo baxaan waa laga yaabaa dad bartay linguistic aad iyo aad mustaqbalka Soomaaliga sidoo aragtaa aad buu wanaagsan yahay way dad baa inta badan ka hadlo yiraahdo wuu dhimanayaa iyo ma dhimanayo mana u dhadhow inuu dhimanayo af Soomaaliga waxa weeye wuxuu galay horta dadka ku hadla way badan yihiin kow oo bariga hore 10 milyan iyo waxba la oran jiray laakiin maanta 25 milyan iyo 26 ba waa la gaarsiiyaa iyadoo qiyaaso badan laga eegayo waa Ethiopia dadka ku nool bariga hore wax yar baa laga dhigi jiray laakiin lama qarin karo Ethiopia waxa ku nool 7 milyan ama 6 milyan oo Soomaaliya ku nool Kenya way ku nool yihiin marka af Soomaaligu qoraal lagu galay wuxuu ka mid noqon karaa kuwa ugu badan ee imika ku jira internetka marka dhimasho wuu ka fogiyay laakiin dadku waxay ka warwaraan waxa way afafka kale soo gelaya iyo isticmaalkooda imika isticmaal marka ku leeyahay isticmaal adeegsi baa af Soomaali ah marka dibna kama taagna marka linguistic laga hadlayo ereyada Ingiriisiga marka luqadda Ingiriisiga waa luqadda adduunka oo dhan qabsatay waxa la yiraahdaa boqolkiiba 60 ama 70 waxay ka soo amaahatay meelo kale waa Ingiriisiga lafteeda marka Soomaaligu inuu soo amaahdo wuu korayaa wax dhib kuma jiraan laakiin marka dhalinyartan qurba joogto kale waxa lagu yeeraa si wallahi lagu yeero kale tusaalahan ma dartay waxa la yiraahdaa Soomaaliga ku gabaabsi noqdo ku bargoay iyaga dhibaato si loogu hortagi karayaa taa runtii waxa koow ka ah waalidka koow ka ah marka ugu horeysa waalidka ka ah waayo waxa jira dad badan oo imka wadankan ku nool oo ama Iran ha noqdaan ama Hindi ha noqdaan ama dadka ama Chinese ha noqdaan carruurtooda iyagu halkan ku dhasho ku koray afkooda way yaqaanaan laakiin Soomaalida waxa laga yaabaa inaan si kastoo istilaahay u dadaal waxa laga yaabaa inay wax ka qaldayn oo aan waalid ahaan aanad ka soo bixin marka horta waalidka ugu horeeya guriga waa inay kala yimaadaan carruurtu halka ugu horeysa waa halka waliba Sweden ama Scandinavia waxay ka mid yihiin meelaha carruurta ku dhalatay ee ku kortay ay ka horeeyaan Ingiriiska iyo maxaan ku lahaa Mareykanka iyo aad bay ugu horeeyaan oo Itaalka waynu dhaanaa marka la eego Sweden marka la eego sababtuna waxaan isleeyahay waxa weeyaan iskuulada lagu dhigaa oo dawladdan Sweden baaba u soo jeeda oo lacag ku bixinayso macallimiin baa jirta boqolaal macallimiin oo Soomaaliya oo dhigaysa tayadu ha iska xumaato laakiin Itaalka waa loo soo jeedaa dawadayaal intaas aynu ku soo koobnaa qaybtii koobaad ee barnaamijkii maanta aanu ka qabanay سيد أحمد محمد يوسف دقي ونقعدنا بوجا سويالك تاريخ ذا أوجي يوسف دقي ونقعدنا يصدق كله إنه نحكي لنا بدوينتي حاجة في الصومال جاي يعرف كلام إنه كهذا لنا قيفتي كوابات تاكسوق بقبلنا تاني سبورت بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته